mucjisadii cayilka dunida ayuu qayb ka ahaa intii uu noolaa ninkani waxaana la sheegaa Patrick Darren Diul oo dhashay 28 bishii 3 March 1962 waxaana la dagaalanka cayilka saaran jirkiisa uu ka maray dhibaato badan jibsiga iyo waliba chickenka ayuu aad u cuni jiray ninkan daqiiqadna ma uusan moogaan cabida biyaha aashitada leh hooyadii Bitten Jean Otte iyo waliba aabihii James W. Diul ayaa waxa uu kaga mahad celiyay in ay dhaleen boqorka xilligaas sida warkuu yiri waxa uu ku dhashay magaalada Kearney ee gobolka Nebraska waddanka Mareykanka daada 54 sano jirka ayuu ku dhintay ninkan sanadkii 2016 maruu u heysay xaaskiisa oo aad u jeclaa waxa uu yiri I love my sweetie is eating I'll love her for life cause she is my new wife sanadkii 1980 ayuu ka qalin jabiyay iskuulka Grand Island High School oo ku yaala waddanka Mareykanka kaasoo markii dambana uu tagay Trinity Lutheran School iyo waliba markii dambe uu ka baxay Walnut Junior High ka hor geeridiisii Patrick Diul mucjisadii cayilka adduunka waxa uu gaaray miisaankiisa 486 kilogram oo 500 kilogram ayaa waxa kaga dhimanayd 14 kiilo oo qura taas ayaana lagu tilmaamay in uu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka adduunyada ugu cuslaa midkood Patrick Diul ayaa waxa la dagaalanka cayilkiisa uu ka maray mashaqo badan jimcisiga ayuu aad u jeclaa waayihii dambe ka hor inta uusan geeriyoon cisbitaal ku yaala Culeyskiisa oo ku yaala South Dakota gobolka la yiraahdo ayaana uu ku qurbaxay ugu dambeyn 29 bishii April 2016 in cayilku foolxumo yahay ka garo sida muuqaalkan aad uga jeetaan Patrick Diul saameynta uu lahaa sida uu markii dambe kuraasta loogu talagalay gaadiidka curyaamada lagu riixo in isaga la saaray socodkii ayuu gabay fadhigana iska badaa sariiryaal ayuuna saacadii u dambeeyay ka hor geeridiisii uu noqday Patrick Diul oo Nebraska iyo guud ahaan Mareykanka aad looga yaqaanay ninkan oo jibsiga cunisteeda caan ku noqday waxa uu ka ahaa agaasime ama maamulo guud baar laga cunteeyo oo ku yaala gobolka uu ku dhashay ee Nebraska muuqaal la diyaariyay oo documentary ahaa looguna magac daray Halfton Man ayaa laga baahiyay Channel 4 telefishinka la yiraahdo taas oo sheekada laga hadlayna ay ahayd jirka oo balac noqda in uu qaadaraya taas oo ka dhigan in dadka buurani ay mararka qaarkood dhaxli karaan cudurro ay ugu horeyso macaanka iyo waliba dhiig karka